وإنه عشر كينا صدنية سديدات أما lesson 38 family members حبناها قويسك كترسان أيامانت إسبرينا and immediate family members or close relatives. Close relative maxaa waaye qoyska kugu dhow ama qaraabada kugu dhow. qaraabo bayaan dhihin, qoyska kugu dhow ayaa la dhahaa. ayaan baranaynaa marka koowaad. Mother hooyo. Father aabo. Aabo. sawirada maxaa usoo qaatay sida u kala xasuusatiin. Brother aboowi. haddaa cashirkan ku xiran tahay aad wax ka baratid arabtid, fadlan buug iyo qalin inta soo qaadatid sawir wax yara sawiraha iska dhig ku qor sida ku xasuustid. Sister abaayo walaasha. Sister abaayo ama walaasha. Brotherna walaalka ama aboowe waa dhihi kartaa. Husband waa nin ama ninkaaga ama xaajigaaga Soomaali siday u dhahdo, laakiin husband waa ninkaaga. Wife waa xaas ama marwo, qof la qabo ayaa la dhahaa marwo. Son waa wiilka adi aa dhashay camal, ma hooyo haddaa tahay ama aaba haddaa tahay wiilkeeda maxaa dhihi my son maxaa laga wadaa wiilkayga. Daughter waa gabar adiga aa dhashay ama gabar heblaayo ama gabar heblow ayaa la dhahaa daughter waa gabarta. My daughter haddaa dhahdid waa gabartayda ama gabadhayda waxa aa dhahdidba. qaraabooyinka dhowdhow ama close relatives halkan ayaan ku dhamaynay. Sorry, qaraabiyaan dhihin, qoyska kugu dhow halkan ayaan ku dhamaynay. Immediate maxaa la dhahaa kugu xigo, kan kugu dhow zaidka kugu dhow ayaa la dhahaa. Extended family waa qaraabooyin ama qaraabo. Extended maxaa waaye haddii direct aan u fasiro, extendedkaas waa wax la yara dheereeyay camal waaye ama sii dheeraanaya camal. adii dhibicda halkan ay ka bilaabeen way sii dheeraata camal. Grandmother waa ayeeyo. Grandfather awowo. Aunt Englishka waa hal oo labo micno u dhigmato Soomaaliga. Eedo ama habaryar ayaa la dhahaa. luqadda Ingiriiska aunt ayaa la isku dhahaa. haddaad dhihi rabtid habaryartay aunt ayaa dhihi my aunt. Uncle waa abti ama adeer. luqadda Ingiriiska labadaasna hal word ayay leedahay ama hal eray ayaa la iskugu wacaa. abti ama adeer uncle ayaa dhihi kartaa. My uncle abtigay, my uncle adeerkay. Cousin waa ilmo adeer, ilmo eedo, ilmo habaryar, ilmo abti ayaa la dhahaa cousin. haddaa maqashid maxaa laga wadaa ilmaha habaryartaa dhashay, ilmaha adeerkaa dhalay, ilmaha eedadaa dhashay, ilmaha abtigaa dhalay ayaa ugu wici kartaa cousin luqadda Englishka markaa isticmaalaysid. Niece waa cunugta walaalka ama walaasha dhashay ama dhalay. markaa dhihi rabtid camal ayada habaryar ayay kugu wici, laakiin adiga maxaa wici anaa habaryar u ahaa dhahdaa, right? ama abti aniga u ama adeer u. marka luqadda Ingiriiska ama Englishka maxaa lagu dhahaa niece, cunugta walaalkaa dhashay, walaalkaa dhalay ama cunugta walaasha dhashay ayaa la niece. Nephewna waa cunuga walaalka ama walaasha dhashay. sawiraha waa aragtiin u maleynaa. niece waa gabar, nephewna waa wiil. marka wiilka cunuga walaalka dhalay ama walaasha ayaa dhihi nephew. My nephew maxaa waaye
Soomaali hadaan u fasirno cunugta walaashey ama walaalkey. Sister in law maxaa ama brother in law waa sister in law waa dumaashi ama brother in lawna waa seedi. Marka haddaan dabagedino aan dhahno dumaashi ninka ayaan kugu wacaya dumaashi, sister in law weli isticmaala, ama gabarta ayaa dumaashi kugu wici weli isticmaali sister in law. Marka adiga haddaa wiilka walaasha qabo camal ama walaalka qabo something like that, waa fahmaysiin ama leena. Mother in law waa sodo, mother in law waa sodo, father in law waa sodog, father in law waa sodog. Marka father in law haddii direct loo fasiro maxay macneynay aabaha sharciga, like sharciga ayaa aaba kaaga dhiga, waayo fahmaysaa umaleyna. Father in law. Okay, our lesson 38 ends here. Casharkeena 38 halkan ayuu inoogu dhamaaday. Fadlan haddaa ku cusub tahay subscribe-ka ha ka hilmaamin. Haddaad kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe-ka ha ka hilmaamin, notification-kana on ka dhigo. Haddaad kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscription-ka ha hilmaamin, subscribe dheh hoos ku taalaa. Gambaleelkana asigan hoos ayuu ku yaalaa, on ka dhigo sida cashiro kasta oo aan soo dhigno ula socotid. TikTok-ta magaceedana waa taas, English Somali Translation Hub, ayadan hoos ayay ku qoran tahay. Kanaalka magaciisana sidaas ayaa la dhahaa. Haddaad TikTok ka aragtay waa mahadsantihiin inta markasta igu xiran oo markasta dhiirigeliso. Adigana midka igu cusubow, viewer-ka igu cusubow, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad comment, share iyo like ka iga hilmaamin sidaan dhiirigelin iga helo.